wafdi ballaaran oo horkacayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa maanta soo gaaray gobolka Gabiley. waftigani ayaa waxa madaxweynaha ku wehelinayay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, mudanayaal ka tirsan aqalka wakiilada Soomaaliland iyo mas'uuliyiin ka socda laamaha dawladda Soomaaliland. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa uu dhagax dhigay wadada u dhaxaysa Dila iyo Kalabaydh, taasi oo dib weyn ku haysa isu socodka gaadiidka iyo dadka rakaabka ah ee mara wadadaasi. madaxweynaha oo dhagax dhigaasi ka hadlayna waxa uu yiri aan ku faanay wadooyinka ay sameeyno waa dalkii dadku ku tarayaan insha Allah halkaas ay ka soo wareegto wixii kala kasii wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland mudane Xirsi Xaaji Cali oo isaguna dhagax dhiga jidkani u dhaxeeya Dila iyo Kalabaydh ka hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay dhaqaalaha lagu hirgelinayo jidkani. halkan waa mashruuc cusub ay naga bixiyeen Somaliland Development Fund ay naga bixiyeen waxa weeye lacagteena ugu deeqeen EU-da iyo Dila la isku xidhayo laba meelood ay naga bixiyeen halka 2 milyan bay ku bixiyeen oo processkii ku jirta halka kalena waxa weeye meesha la yiraahdo la Faruuq ilaa iyo Sheekh oo iyaduna wadada la yani maintenance lagu sameeyo dib hagaajin lagu sameeyo dib habayn marka kiiba halka ka bilaabanay insha Allah taala intii shishay xagga shishana way dhamaatay already oo waatay insaan maayarka magaalada Gabiley mudane Shacay Maxamed Muuse oo waftigani soo dhaweynayay ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland. soo dhawo Gabiley ku soo dhawo hooyadii halganka iyo hooyadii Soomaalilandba intaas waa taa wax sharaf weyn oo ah iyadoo maanta ay dhamaatay oo gabagaba ay ku dhowdahay wadadii isku xidhisay Togwa Jaale iyo Kalabaydh oo ay maanta caratuulka gaadhay controlkii waqooyi magaalada in maantana nasiib wanaag madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu dhagax dhigay wadadii isku xidhisay haddana ee dib loo hagaajinayay Kalabaydh iyo Dila oo ka tirsan degmada maaragtay Gabiley inta u dhaxaysa Gabiley iyo Dila kani uu dhagax dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa noqonaya wajigii labaad ee dhismaha jidka isku xidhi doona magaalada Boorame iyo caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Mukhtaar Nuux Ibraahim, Hon Cable TV, Gabiley.